iyadoo dhawaanahanba lagu guda jiro gurista midhaha sarca bislaaday ka soo go'ay daagaga ku yaala mashruuca banka Wajaale ee gobolka Gabiley ayaa haddana maanta loo bilaabay si rasmi ah gurista daagaga bislaaday oo midhaha digirta oo ka baxay mashruuca banka Wajaale oo gacanta ay ku hayso wasaaradda beeraha Somaliland iyo ciidamada qaranka ee mashruucaasi isku duwaha wasaaradda beeraha gobolka Gabiley Cabdirasaaq Sheekh Maxamed Gaboobe ayaa ka qayb qaatay gurista sarca bislaaday sidoo kale waxa iyaguna si tabarucaad ah uga qayb qaatay ururka beeraleyda Tawfiiq oo fadhigood yahay beesha bale xoole ee deegaanka kala baydh ururkaasi oo wasaaradda beeraha gacan ka siiyay hirgelinta hawshan iyo waliba ballaarinta mashruucyada dhaxalgalka ay lagu cilib tirayo baahiyaha shacabka Somaliland u qabaan khudaarta iyo sarca kala duwan ee nolosha ku qotoma waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay isuduwaha wasaaradda beeraha u jooga gobolka Gabiley Cabdirasaaq Sheekh Maxamed Gaboobe oo ka sheekayay mowduucan maanta marka hore ilaahay baa mahad leh malaka waxaan mahadnaqayaa ururka beeraleyda Tawfiiq oo urur beeraley ah oo ka jira beesha bale xoor oo ka tirsan kala baydhka waxa ururkaas oo urur beeraley ah oo ay isku tagayeen qaar ka tirsan beeraleyda deegaankaas waxay hore soo sameeyeen horumar ballaaran iyagoo xoogooda isu geystay wax badan soo saaray sanadihii soo dhaafnay 2013 ururka beeraleyda oo urur isku tashaday iyagu wax badan sameeyay waxay maanta nagu deeqeen xoogooda waxay naga qayb qaateen oo ay naga qayb qaadanayaan maanta ee naga caawiyaan gurista digirta waxaan dhex joognaa maanta qayb ka mid ah mashruuca Wajaale qaybta ciidanka qaranka ee wasaaradda beeruhu qoday daagan wuxuu ka mid yahay daaga hawlka oo ilaa 20 daag oo haruura oo xaalad kala duwan ku sugan qaarkood waa sida qaarkood waa meel dhex maraya qaarna waa imika wadhaanba halkan waxaa ku beeran fuulkii waa ku beeran halkan halkan waxaa ku beeran fuulkii waa qayb ka mid ah mashruuca qaybtan ciidanka qaranka marka daagan waa fuul xagga wax naga xiga daagan waa ka mid yihiin sisintii iyo watiga doonada dalaga sidoo kale xubnaha ugu sareeya ururka beeraleyda Tawfiiq ayaa soo dhaweeyay mashruucan waxayna tilmaameen inay si tabarucaad ah ula shaqeyn doonaan wasaaradda beeraha Somaliland بعض الله يسكله وحن مهد علينا إياه وساردة بيرها اسمها جودة وساردة بيرها كدرجة مهد جودة هي صحافة أردن هي عيدها قرن أردن ما أنت أنا وحنا يسكاش تطورك التوفيق وحنا ما أنت قرنا إنه نسمة تطوعني معه إنه ما أنت إنه وقعي قاعدنا مشروع هرم مركز يكون دو وسارده دول كمشروع تقول أهلا وبركاته إلهي بهرت مهد سكله waxaan u mahadnaqaynaa wasaaradda beeraha iyo horumarka ay ka sameysay mashruuca Wajaale annagoo ururka beeraleyda ee Tawfiiq waxaanu maanta ku caawinaynaa mutadawacnimo inaanu garabka la qabanno hawlaha ay ka fuliyeen mashruuc Cabdirasaaq Sheekh Maxamed Gaboobe ayaanu magaranaysaa maanta garab siinaynaa ilaa intay shaqada soconaysana diyaar baanu nahay mutadawacnimada inaan ku shaqeyno hadii alla yiraahdo halkan waxaan uga mahad celinaynaa wasaaradda beeraha faa'iidada ballaaran ay ku tallaabsatay ayaan aad uga mahad celinaynaa maadaama ay ka fulisay deegaanka Wajaale mashruuc ballaaran oo wax soo saara haday digir tahay haday tahay tii casayd haday tahay tii cadayd haday tahay haruurkii waa horumar ay wasaaraddu ku tallaabsatay inta ka dib isku duwaha wasaaradda beeraha Somaliland Cabdirasaaq Sheekh Maxamed Gaboobe ayaa kormeer ku soo maray mashaariicda ay hirgeliyeen ka wasaaradahan kuwaasi oo anfici doona shacabka Somaliland iyo ciidanka qaranka ee gacanta ku haya gabi ahaanba mashruuca banka Wajaale waxaana xusid mudan in hadiiba shacabka reer Somaliland u soo wada jeestaan beerashada dalagyada beeraha ay gaari lahaayeen horumar maadaama carrada Somaliland ay u bisashay wax soo saarka khudaarta noocyadeeda kala duwan balse aad moodo in shacabka badi ay ka sii jeedaan beerashada iyo tabac gelinta kheyraadka dalka waa Jaafar Awil Hareeri Kalsan TV magaalada Gabiley